xildhibaan Ibraahim Axmed Laangare iyo xildhibaan Maxamed Axmed Jaamac Kamla oo kamid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo iyagu ahaa xildhibaanadii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wicid uga soo baxay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ayaa si kulul u cambaareeyay tallaabadii maamus la'aanta lahayd lagula dhaqmay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wicid injineer Faysal Cali Waraabe iyo hor istaagii madaarka lagu hor istaagay musharaxa madaxweynaha xisbigaasi aqoon-yahan Jamaan Cali Xuseen iyo warbaahinta waxaana eedeyntaasi xildhibaanadu ay dusha uga tuureen mas'uuliyiinta madaarka Hargeysa iyo waliba xukuumadda uu garwadeenka ka yahay mudane Axmed Maxamed Maxamuud Jilaan ana sidoo kale xildhibaanadaas ay soo dhaweeyeen dooda qaran ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka iyo madasha wada tashiga taasoo ay sheegeen in lagaga tashanayo aayaha Soomaaliland gudoomiye yiri shir qaran baynu qabanaynaa oo maxaa dalka inoo dan ah yaa lagu soo dhaweyn airportkii Hargeysa international airport anagu waxaan u aragnaa wax haddana nahay xisbiga wicid wax aan dan u ahayn dalka ee ah abaabul yakeen musharax madaxweynaha Jamaal Cali Xuseen oo madaxweynaha saadal in airport ka laga cisho xaq uma laha Siinaay isagu maanta waxa islaaman kursiga uu ku fadhiyay kaliya just the time waa candidate musharaxa soo socda in airport ka laga cisho maahe anagoo Ceergaabo joogna ayaa soo dhaweyntiisa xaq noogu leh inaynu ku soo dhaweyno gudoomiyaha iyo musharaxaba meel kasta ay joogaan marka waxaan leenahay dawladda habkii dawladnimo waa ku taagantihiin waxba idinka khaldan waxa idinka khaldanna inta yareen ka laalaada ilma yar iska gooyo xukuumadda adduunku wuxuu ku dhisan yahay talo iyo wada tashi asxaabta iyo dawladdu haday dood qaran qabtaan oo ay isugu yimaadaan waxaan maleeyahay wax badan oo hadda naga maqan in hagaagi lahaayeen oo wax laga xumaado oo daliil weyn ku ah maanta Somaliland aan u aragnaa arrimaha badan ee dimuqraadiyadda ah ee ay hor taagan tahay xukuumadda Soomaaliya sida waxaad ka soo qaadaa arinta la yiri gudoomiyaha xisbiga ucud cidima soo dhaweyn karto waa gudoomiye xisbi qaran Victoria taageerayaashiisa cid kastoo afkaartiisa raacsan way soo dhaweyn kartaa iska hortaagi kartaa sharci iska hortaagi kartaa musharaxa laga celinayo airport-kana waa wax qeyr Victoria waxaana arrimaha waxaan u aragnaa kicin أنا حق والله الحكومة حركة أي واحد تجلها حسبيات قرن كهرباء ودشنا تجلها سلاي حوالي حكسوا بحي حسبي معارضة دي وقعد كيد كسوا مرتضى كسوا الله هيرك وسوق عرسية شذات كي ودوين حركي جوبيستي أنت بقى احترام الدستور كي شرعي ولو قد تجلها يسوقوا أيوتهم كعيا حاولوا وفل عن الوه باهن المان توت قرن حكومة وأنا أساس كقاعدهم معها وأقول سويدارس أفكار لسويدار سنة محا خلدن محا حكومة قبتي محا قدمان علي